بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنت وضياشة سومالي راديو عاوة مانتا برنامج كنا حساب سنة برنامج كسوغانتا وحين كسوق عن دونا أبوان عبد الرحمن أحمد شبانة سحرديد الله يقانه وأبوان سومالية عنك دلك الأيرلانية دلك هو يبه أبوان سومالي راديو waxaan la soconay muddadii aan halkan joognay iyo muddadii faraha badnayd ee aad ku noolayd waddankan Ireland caan waxaad ku ahayd xagga maansooyinka iyo gabayada Soomaaliga ah runtii suugaanyahan weyn baad ahayd anaguna aad baan ugu helaa suugaantaada waxaan jeclaan lahayn bal in marka hore taariikhdaada aad noo soo yar koobto xagga noloshaadii iyo waayahaagii iyo taadii gabay muddadii dheerayd ee aad noolay طول ما صنت عبد العزيز هذا أضل ما صنت هاي مرحلة تعرف إذا كان حياة شكلية نحن بس كدوات تناقض كم نحن بس مجال على الكابو نقول في السنة هذا ندرسه هسه كبلاوي حمر بنينا أنا وقت يوجد مصطلحات ويا نبشر برعة جيسة إلى إيرلاند أو مجال دبل اللي رهضان إلى هذا الدور قوي 12 سنة مالها عن كل راح مركا تاريخ يفتح واصلاس لكن تنقبل كنت جوامع بلعبة بعد تشبوي بقولك أنا يا هوايضة أيه الجو يقول هي المستمعي 2013 كان وصل سنة كون أي أنتي حكي بالورق ترى سوي أوكي أنا أريد بالترنتي برنامج تنطوي موضوع أرجعه أتكلم بالعربية إذا كنا نعرف نجاي كبعد تلسيو عضاني هذا أوكي حريري أي كان أرجعه أي موضوع الأساسي الهبين لبلاغه فالشعب كي أنتي نقص هنا في نبيك الله حذاني لا أرجع وسعدان مقالة بتجي ضد كبار صوب بحيي أو شيء موضوع أرجع ولا بلاغيه وصلح بقول الله ترى مترى يولد عن اعتراف موسكا طبعا ترى بلاغيسي مكذا تروح لها يوم كل بحنا نعرف جيجا جيجا مكان تاس يوم مشكلة مكان دعوة لو شركة مشدي أيام تي عادوا جهلا بس كان يدو ده تاس أيام كل اختيار كعبية وضو أوكي أبوان وشو هنا وان فرح سنة يتحرك هذا وان الأبن هاي إن قبيلة نوع عصا أو أن لغة أذو حسين إن شيء والله حنجعلنا هنا ما أنت قبيلة هذه عن بعضي والميت كم ده أنت هنا برنامج كسي وذين لو غرفته صراحة خير هو السنة يا تا أديك عدك كرو قاضي يا كور السنة يا شاء الله أبوان في خير اللي أنا بان أبوان هي أبوان في وين دميه سمالا مراد أنا صوالي و 2 مليون نكت 2 مليون أبوان وباقي في أبوان أنا كن تصلح بورقة قارية ودبل المال راح كنا أو إيرلاند أيام أبوان واحد والقرن كده أبوان ذي تكرسنتها marka laga yaabo dib fiiro Soomaaliya la taano Soomaaliland la tago ishan afar abwaan aan gaari karnay joogan marka qurbata abwaanada ka runtaan ku yar dalbayna abwaan meehi waxaan ahay abwaan yar dad bilowaan hay waliba marka badal ciyaarayo waxaan soo jiray waag hore ku yar ba ku doosi kubadii كمان نختار صح كهوش أبوان كمان سهيا مهي أبوين أوكي أنتي مكان سكبروا ويا هي أبوان يعني ذيك الداية ذيك إيوه كاميرتك بسم الله الرحمن الرحيم دويد بمان ده هين قبل الدور كيه لأنه هي قبل الصوم مرين ضيري بتاعي شريه وحساعة وداهي كثري ودرين شريه تيفيقة قرق هنداوضو ونكدير صلاة عوكيو وركي صوت درين هريري دور كيه بالبرنامج كداوضو بقولها ودرين دقمده إنه يدل أيي وضع دوافين شعبي إنه دياري هي أيي جنوب الشاقين أو أي دلكو ديو لسان
dowladoodaba dal nimcaysan baa leenahay iyo buurahoodihine oo dalaga beeraha leh iyo dunyadoo idile dhanka kalena bada dayran iyo beeya dacal taallo oo uu kalluunkii daf yahay dibadda soo booday durdurrada batroolka iyo shidaal daakhilkuna buuxo innagoo waxaa daysano aad yar dacal joogna inaan dibadda eegnaa ma aha garya dawgeede innagoo waxaa daysano aad yar dacal joogna inaan dibadda eegnaa ma aha garya dawgeede dadka sugaya dowladaha kale oo daciifnimo dalka horumarkiisa ku jira inaan dadaalaaye oo aan dariiqyada dhisnaa laami daabacane waxaa doorka noo heelan yahay waa dariiqyada daafaha sanaag iyo berberaatan iyo dow oo dhan dayac baa ka muuqdo wataa boorku degi waayey dacallada buraan iyo gar adag baa ka sii darane dayr baynu kaga oodannahay derisyadeeniiye dirqi baa iskuul lagu dhigtaa degelladeeniiyo daawana ka dheeroo raf baa loogu dowgalee umulaha dariiqaasi qabo malaha daymoode dayaxa la gaadho adduun waa dingiigsadee innaguna halkii aadan degay baan ku diriraaye waxaan dabada haynaa wixii aabbaheen dilaye dalka inaynu wada leenahaan idin dareensiine daraf bari ilaa daalo iyo gobolka duudaysan ilaa maadilaa booramiyo sayla dacalkeeda somalilan dacal ilaa dacal in loo gaadho oo aan laami wada daadiyaan dowga ku hayaaye somalilan dacal ilaa dacal in loo gaadho oo aan laami wada daadiyaan dowga ku hayaaye degmadaa taleex iyo wixii dogoblo loo gaadho ama dowyadii laasbariyo maydhna dacalkeeda inaan laami wada daadiyaan dowga ku hayaaye dubur hawdka kaga soo darooxaahi dacal saaro oo daad mareeriga gudboosiina daadegoe salaxlay dushaa kaga dhaco dooxa ku ekeeyo balli gubadle damashiisa iyo doolo kor u dhaafsho oo aan laami wada daadiyaan dowga ku hayaaye iyo guura dowga baxshoo bari u sii daayo darka xagal nirguhu daaqayaan kor u dabaarsiiyo ilaa kanin ku soo dayro oo dadabu weydaato laasciila dowxooyinkii raari ku dabaalo dhixda cawda laga soo daldalo dhuur ilaan dego halka dahabka maydigu dul yaal laami wada deeqsho oo aan laami wada daadiyaan dowga ku hayaaye afar cudur haddaynaan daweyno waa dadnimo beele dabar jarin qabiilkayna dilay qaadkan dacal yaalla musulmaasaqana dayr ku xidhin dowlad laga dheere taariibkana ka doorbidin dalkoo deeqda aaminine dalkii waxaad jeclaataa markaad dibad u soo dhoofto oo ay indhuhu daalacdaan dowladaha kale dalkii waxaad jeclaataa markaad dibad u soo dhoofto oo ay indhuhu daalacdaan dowladaha kale dal horu socdaa muuqda iyo maamul daacadaahe haddaan shacabku doorkiisa qaban guuli waa dabade geesina ilaah kuma dayaco dowga uu maro isku duubnibaa aadmiyuhu danu wadaagaaye haddaan hog cadaadaadahayn wayba dabeedaaye shacbi dowladdiisii wataa maaris buu degiye dayaxuu hadduu doonayana dacal ka dhaafaaye wax dabaali kara maba jiraan dowladoo idile wax dabaali kara maba jiraan dowladoo idile inaan daalaboqnaan rabaan oo dalkii tago rabshigana dalxiis ugu baxo xiisu daadego waddadoo diyaaraa rabaa inaan ku duulaaye oo aan biriijada dul maro laami daamire saraar daalla-aanaan ku maro uwadna igu duulin dalyaqaan anoon doonan iyo dooyo mariyaae dalyaqaan anoon doonan iyo dooyo mariyaae dalyaqaan anoon doonan iyo dooyo mariyaae didibkii kaliyaa daalin jiray diririgtii waayo eelaf weyn ku soo daadegoo caydhaf dalab siinin ifla dhaxantii duubnayd anoon dogobyo sii qaadan dagaar daadkii shalay soo rogmaday aadyar duud marine anigoo damaashaad ku jira ceeri duur joogsan midhashana yar soo daawadoo soo dabaaldegine oo aan daqiiqado misana dib uga soo laabto
allahayow adaa daayine diinta nagu waari aakhirana durdurkii janniyo nebiga dayrkiisa allahayow adaa daayine allahayow adaa daayine diinta nagu waari aakhirana durdurkii janniyo nebiga dayrkiisa allahayow dadkii nebiga iyo xawdka nagu dooji allahayow adaa daayine sahal dariiqeena salaamu calaykum waa aad baad mahadsantahay saxartiid barnaamijkan waa barnaamij suugaanta ah oo uu abwaan saxartiid uu maansooyinkiisii iyo gabayadiisii uu halkan si taxano ah uga sii dayn doono Somali Radio oo ku yaala dalkani Ireland. abwaan saxartiid wuxuu ka mid yahay abwaanada ugu waaweyn dalkani Ireland ee munaasabadaha ay dadka Soomaalidu isugu yimaadaan ka jeediya gabayada iyo maansooyinka wax ku oolka ah. haddaba saxartiid inagoo barnaamijyada dambe u geli doonaa gabayadaadii kale ka waran intaad halkan joogtay Ireland ka gabayday xagga dhaqanka halka waddankan ay nimid xagga in Soomaalida isdhexgalkooda iyo in ummadda ka faa'iidaystaan halka ay yimaadeen iyo gabayo noocaas iyo maansooyin noocaas ma tirsan. horta runtii way jirtaa gabayo aan tiriyo gabay ku xiga gabayga labadan tiriyo gabay qabyaalad ka hadlaya qabyaaladda gabay isaga laftiisa ka hadlaya guurow la yidhaahdo ayaa isna jiro ballaaran oo aad u dheer oo isna ka hadlaya dalkii iyo xilligii madaxweynihii gaban kaga qayb qaata jira oo soo dhaweyntii madaxweynaha laftigeeda aan sugayo iyo gabayo kaloo wax jira isaga laftigiisu iyana ka hadlaya bulshada laftigeeda ka hadlaya jira qabyaaladda gobolka soo ah runtii aan leeyahay qabyaaladda waxaa kaga jira oo kan oo kale hadeer waddada Ceergaamo kan waddada Ceergaamo maxaa kuu kalifay inaad gabaygan waddooyinka aad tiriso? runtii waxay u kalifay diyaarad waddankii wax sii qaaday oo meel kasta waddankeena ka mid ah maanta waddooyin ka socda waddada Saraxle tahay hadday tahay Galguduud hadday tahay galbeedka oo Wajaale Boorame tan xeebta waqooyiga Hargeysa tan bariga laftigeeda Ceergaamo mid kaloo yana berbera ka baxaysto ilaa Haaribuula waxyaabahaas oo dhan u kalifay dadkii naasay waddankii uga qabsanayaan way jecel yihiin qabtaan awoodiina ana waxaan runtii waxyaabahaas aniga kalifayaan runtii waxa weeyaan waa gabay maanso qiimo leh oo dadkeennii oo wadaniya oo dadkeennii ku dhiirigelinaysa inay waddooyinka iyo waxyaabihii kale ay qabsan karaan waa qiimo leh. tan qabyaaladana waxaan rajaynaynaa barnaamijkan mid lamida wiilka dambe intaan ku kulmi doono oo uu abwaan saxartiid inoo sii faahfaahin doono gabayadiisa qiimaha leh. waxaan kaga tegaynaa saxartiid sidaa iyo nabadgelyo. assalaamu calaykum saxartiid waad mahadsantahay.